galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorshaynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xidha muqdisho iyo afgooye dhinaca kale 2 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28 Disembar sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo 2 maalmood ah waxay qirteen mas'uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horreysay al-shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska X Control 28 Disembar 2019 subaxnimadii sabtida 28 Disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X Control darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee Muqdisho shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 daqiiqo ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska X Control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyey lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buulafalaay ee u dhaxeeya Shabeellada Hoose iyo gobolka Baay waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhaxaysay ilaa 6 maalmood baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Toorotorow iyo Janaale isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Wallaweyn iyo degmada Afgooye sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysay weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii X Control galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas'uuliyiinta amniga gaar ahaan hay'adda NISA sababtoo ah waxay filanaysay hay'adda NISA weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay'adda NISA xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga waxa kaloo galka baaristu uu ka ogaaday ila dhinaca amniga ah oo magacooda qariyay sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya mas'uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmet Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi I don't have any this kind of report to me but I don't know if company has received or not ma hayo xog ku saabsan wararkaas ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka waxaa mas'uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowlo leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay'adda NISA hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay X Control 28 Disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay
waxay kaloo qirteen markii ugu horraysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weerarro badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. weerarradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii Juun sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. 2 weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. 2 weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macallin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka al-shabaab. warigooda yiraahdaan annaga dawladda kaliya taariikh garaysanaa, shacab wax ma yeelno, waxaan ku yiraahdaa dadkan waa muslimiina, waa dad nala dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo walba oo ogyahay ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxyada inay shacabku baabiyaan muslimiinta ah. waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 November maaragtay ka dhacay suuqa beerta. xarun dawladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dawladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtay qaraxii nimankii galay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Pizza House oo gabdhii masaakiinta laay ma biisus ma dawladda ku jirtay, ma dawladda shaqo kule meesha. labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2011. waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha al-shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horraysa ee u suurta gasha, oo ay ku jiraan goobaha rayidka sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka al-shabaab. saraakiisha al-shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xihan qaraxa. waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaan jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. sidaasi oo kale al-shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. maxamed xasan aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka al-shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka al-shabaab. waxaa igu dhaliyay Haaruunow maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii dhiigooda la isku binaysto, iyaga dhexdooda hadday tahay iyo haddii ay yihiin shacab labadaba. waa garta wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa, dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatood isdhahday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani waan tegaya? haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale. waayo tan Zoobe haddaan usoo laabano, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadleen, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen sooma. iyagu maxay ka dhaheen? qirisho ma ahan, aniga horta ninka Zoobe isku qarxiyey anaaba laf ahaanteyda aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhaweyn. inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan maaragtaa wada kulannay, isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qarxiyey tiyaamka ahaa wato. xilli habeena meel tuula aan maaragta anoo socdo isku aragnay, isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay. meeshii aan abaar ku sheekaysanay, waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aada wado
haddana wuxuu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan awgeed unbaa inta u joogaa. sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxaan hordhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen. nimankan hadalkoodu waxaa weeye hadalkii bay ku celcelin jireen keli waxaa ku cusub masalada ay leeyihiin waa ka ciyaareen muslimiinta wax gaareen marka hadda intaana ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo lagala jihaadayo in muslimiin wax gaaraan kee noqonaysa xilinkeeda iyo maaragtay waxnahaasoo kale ana ka hadlinba waxaa ka cusubaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin ma tahay diinta islaamku waxayna baraysaa qofku haddii uu shaqada uleeyahay biteeri ama uleeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo uleeyahay ama ay maaragtay xanta loo dhihin markaas ayuu wixii khaldo wixii kale la fiirin karaa sida dhakhtarka oo kale sida ninka qaaliga oo kale waxaa qofka matalan dhakhtarka markuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano leesankeeda haysto hadduu khaldamo khaladkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyay marka nimankan tootali ama ha saxaan ama ha sudaan shaqo aysan lahayn bay faraar kaga jiraan waana shaqo xaaraan ka ah nabi sal alay wasalam xadiis buu ku sheegay ninka qaaliga ah yani qof wuxuu xil u lahayn qaali ka noqonaya haddii uu asiibo uu maaragtay jawaabta saxda ay ku jawaabo ahlunaar wey ninkaas laga yeeri maayo maxaa waxaanu shaqadiisii maaha garanaysi marka waxa weeye nimanka waxay maaragtay faraar kula jiraan ay maamulahayaan ay sheegsheegay oo jihaadka ahay wax shaqadooda maaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasada muslimiintu ay kula dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya wey siyaasa khaarijiyana ummadda muslimkaa dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hogaankooda maamusha waxay siyaasa khaarijiya hal waji ma laha intaas wajibay leedahay marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo ibnin inuu wax qalo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska furto oo leysin beena haysta waa in laga xiro asal lasoo maadaama nabiga sallallahu alayhi wasalam isagoo jihaadkiisa la huro oo nabiga ilaahi iyo sallallahu alayhi wasalam oo maaragtay xaggeeda lagu soo diray wuxuu la dagaalamayaa gaalo la hubo ay tahay waxaa dhahay nabiga sallallahu alayhi wasalam markii xudaybiya uu maka aaday uu soo cumraysanayay oo loo diiday inuu cumraysto oo maaragtay meeshii xoolo ay kul fadhiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici damcay ilaah subxana wataala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin ahoo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku daxiisanaayo lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii markaa maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay maka aad gashaan baa laidin ogolaan lahaa oo markaas gaaladaas maxaanku yidhaha idin dirtay ilahi subxana watacaala la dagaalamaysay diinta ilaahay la dagaalantay oo idinkana hadda inaad maaragtay xaramka ilahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaanku la xagaabi lahaa oo la xilqaadi lahaa ingalata marka ayadan ku akrinayaa ilahi subxana wuxuu leeyahay هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا عند بلغ المحله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذابا اليما فصوت فتح ايات 17 فقال تعالى ويقول تعالى عويه وحرمت الهي ما دعي جدا marka fiiri waa gaalo la hubo ay ku darsadeen dagaalda ku darsadeen muslimiinta kasoo qaadeen maka hadda inay cumrataan u diidan yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan maaragta maka la gelinin oo ciidanka nabiga sallallahu alayhi wasallam aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabin haddaa maka gashaa inaad dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey saas macnaheedu yahay gaaladii maka deganayd oo dhibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina dartooda ku dhex jiray ay ku badbaadeen maantana maxaa dhacaysa maantana waxaa dhacaysa hadday yihiin gaalada gaalaha maba misal hadda turkida oo hadda muslimiina wey laakiin laba nin bay ahaayeen ciidankooda meequ ah hadda muslimiina aska soomaaliyeed ah askaba soomaal inay gaala ahaayeen meeqaa dhibata muslimiina marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weeye cagsigay u shaqaynayaan muslimiin badan bay laynayaan ayaga oo dad ay gaalo ku sheegaan oo iyo raacsanay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay maar amarkiisa isagoo maaragtay gaalo badan u jeeda oo laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la daayay ayagoo muslimiin yar oo tiro yar ah
hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo armid conflict location and event data acled waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sannadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka al-shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof halka laga soo bilaabo sannadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada al-shabaab ay dhan yihiin 4,340 qof cisbitaalada muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha cisbitaalka madiine doctor maxamed yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeya cisbitaalka madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada iyo dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xooggan ka bilowdeen magaalada muqdisho sannadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada etoobiya ee taageerayay dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo al-shabaab dhaawacyada anaga aan jisgareynay waktigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof oo dhaawaca waa isbitaal madiina kaliya marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen dhaawacyada marka aan kala saarno anugu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday hub dadka oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas wey qarax oo haddana noocyo kale ah roogyo la isku toostuuray ahay muddooyinkii hore qaraxyo inta baawar laga soo buuxiyey marka dambe meelo inta la dhigo la qarxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugunayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay marka intaas kaliya haddii aan ka hadalno illegal wounded waxay imaanaysaa 54,000 waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ee ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira waxa waaye meydka waa badan yahay aada u badan yahay adiga waxaa xisaabtaa 100 dhaawaca haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo cisbitaalka cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka daarushifa waxaana uu galka baarista u sheegay in tan iyo sannadkii 2004 ilaa 2019 la geeyo cisbitaalka daddhan 17,412 qof oo dhaawaca kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah waxaa iga xasuusinaa dhegaystayaal in shaqada bani'aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah waxaa ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay wehelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha cisbitaalka madiine doctor maxamed yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyey inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe dhibaatada dhacday ilaa 600 oo gaarmiidka iyo 30 mid lamida Soomaaliya ma soo marin inta dhibaato u geystay iyo daawirka oo lahayd qaraxaasi jiro wax lagu mashaqo karo oo dhibooyo ilaahay mar dambe loo fasiro daawkaas oo kale binaadamku baadiyo waxay Soomaali baadiyo imisaa ku dhimataa tiri imisaa ku dhimataa anaga 232 loo keenay oo meeya markii dambena waxaan loo soo daray adiga 16 kale subaxii waxaa waaye waa loo yimid adiga waa la wada qaaday midkaasi fiskool bulshada lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa ku tusi doona qaarkood laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey cabdullaahi maxamed shirwac oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof anaga saas waa laakiin anaga waxaa noo kaalkolaadaysan ilaa 630 qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha ku dhowaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii Ex Control 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyey waddanka 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho
intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Letitia Barer oo ah cilmi baaris sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in al-shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. dhimashada rayidka badankeedna ay al-shabaab mas-uul ka tahay. Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in rayidka iyo kuwa militariga. Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaadha rayidka. 8 bilood ugu dambeysay oo kaliya boqolaal rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada Midoobay sida ay sheegtayna 75% haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada al-shabaab. Dadka Soomaalida ah meel kastoo ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. waxa kale oo su'aale ay hortaallaa ururka al-shabaab. su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay rayidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga islaamku uu xaaraan ka